halabuurku waa furaha horumar waara waa halkudhiga barnaamijka fagaaraha halabuurka oo caawa lagu qabtay xarunta maktabadda qaranka Gabiley waxaana barnaamijkani fagaare caawa lagu falanqeynayay halabuurka tiknoolajiyadda horumarka iyo shaqo abuurka dhalinyarada waxaana barnaamijkani soo agaasimay xarunta tiknoolajiyadda qaranka ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jamhuuriyadda Somaliland oo dardar gelinaysa halabuurka dhalinyarada ee dhinaca tiknoolajiyadda waxaana caawa barnaamijkani fagaaraha halabuurka marti ku ahaa dhalinyaro aqoon-yahan ah oo aqoon dheeri u leh waxaana ay bulshada magaalada Gabiley iyo caasimadda gobolka la wadaageen faa'iidooyinka iyo fursadaha tiknoolajiyadda dhibaatooyinka tiknoolajiyadda iyo doorka ay ku leedahay dhaqaalaha dawladnimada iyo horumarka dalka waxaana barnaamijkaasi caawa ka soo qayb galay maayarka magaalada Gabiley mudane Maxamed Aamin Cumar Cabdi Golihiisa deegaanka qaar ka mid ah agaasimo waxaadiira wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland aqoon-yahan dhalinyaro iyo haldood tiro badan iyo isduwaasha laamaha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Gabiley ugu halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maktabadda qaranka Gabiley Mustafa sharaf iyo farxad bay noo tahay inaan barnaamij noocan oo kala marti gelino oo runtii ka hadlaya tiknoolajiyadda iyo halabuurka duniduna siday u eeg tahay iminka waxa lagu jiraa waa laba cahdigii tiknoolajiyadda iyo cahdiga informationka marka labadaasiba waa laba muhiim noo ah wasaaradda iyo tiimka wasaaradda hawshan wadana waan uga mahad celinayaa oo barnaamijkan inta badan waan la socdaa waxaan insha Allah rajaynayaa in dhalinyarada Gabiley ka faa'iideysan doonaan annaguna aan ka wada faa'iideysan doono maktabaddu waxyaabaha u diran tahay ka mid tahay barnaamijyadani waana mid ka mid ah mawaadiicda aan xiiseynayna inta badan madasheedan ka dhacaan sokol waxa halkaasi ka hadlay isduwa wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda gobolka Gabiley iyo sidoo kale qaar ka mid ah agaasimo waxaadiira wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda ee Somaliland kulay muhiimadda iyo dulucdan caawa inuu nimidna waxay ahayd barnaamijka halabuurka iyo horumarinta dhalinyarada iyo shaqagelinta halabuurka kulay doodii si fiican bay noogu soo dhamaatay muhiimadan iyo ujeedadan aan u keenay gobolka wuxuu ahaa inay arrimahan waaxdan wasaaraddu ay samaysay ee qaybta halabuurka tiknoolajiyadda ah oo qayb platform ay ardayda ama dadka halabuurka tiknoolajiga leh ay ku baratiskareeyaan kulay taas un bay ahayd insha Allah marka mustaqbalka gaadhana waxaan samayn doonaa inay gobolka aan keenno qayb kamid oo maxay xarunta la soo fidin doono oo la dhigeen doono qayb gobolka ah inay maxay ahayd ardaydu ka faa'iideysan doonaan imika lafteeda waa u diyaar inay ardaydu qaybta halabuurka ardayda kulay markay ardaydu barata cilmigan tiknoolajiga waxa jirta arday halabuur leh sida suugaanta oo kale halabuur leedahay oo fikir ama software curiya marka wasaaraddu waxay u haysaa platformkii kulay insha Allah noqon maayo kani kii ugu horeeyay weeyaane kulay aad baan gobolka oo maayirkiina caawi joogo waxaan leenahay inay wasaaraddu qaybta gobolka ay gaarsiin doonto tiknoolajiga wixii gaabee jooga ay aad u gaarsiin doono oo doodayna saad arkaysaan waxaynu ku falanqayn doonaa hal abuurka tiknoolajiyadda horumarka iyo shaqo abuurka dhalinyarada maanta waxaynu ognahay tiknoolajiyaddu heerka ay ka taagan tahay adduunyada intiisa kale waxa adduunka maanta la isku eriyanayaa waxa weeyaan tiknoolajiyad kullay tiknoolajiyadana waa inteenan halkan fadhida iyo wadanka waxay ku soo kordhiso taa iyadoo laga duulayo ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyaddu runtii inoo soo abaabushay barnaamijkan oo kankii ka horeeyay runtii lagu qabtay caasimadda dalka ee Hargeysa kiisi labaadna halkan lagu qabtay marar kalena lagu qaban doonaa insha Allah biidnillah meelo kala duwan markasta barnaamijkan wuxuu focus ka saarayaa waxa weeyaan tiknoolajiyadda oo ay tahay inaynu maanta adduunka kula tartanno taasaa waxay keentay inaynu maanta mawduucan aqoon-yahan iskugu yeedhno aynu runtii ka faa'iideysano aqoontooda aragtiyaha runtii inooga soo baxana runtii wasaaradda isgaarsiinta oo joogta iyo dhammaan laamaha kale ee inala jooga ee dawladduba aan runtii weelayn doono oo runtii laga qaadi doono tallaabo wax ku oola runtii qaranku ku faa'iido waxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda abuurtay xarunta tiknoolajiyadda qaranka amba Somaliland Innovation Zone xaruntaas oo ujeedada iyo hadafka laga leeyahay tahay in lagu tababaro kor loogu qaado xirfadda da'yarteena Somaliland amba dawladda u shaqeeyaan amba jaamacadaha ku jiraan amba ganacsatada baa u shaqeeyaan in kor loo qaado ujeedada kor loogu qaadaya waa maxay waxaan ka doonaynaa inay la yimaadaan halka ay dunidu socoto innovation markaynu leenahay innovation marka si kooban la qeexayo waa change isbedel marka da'yarteena waxaan doonaynaa inay keenaan isbedelka maxay ku geenayaan through technology iyagoo isticmaalaya technology
marka technology-guna wuxuu samaynayaa waa maxay waa inuu waqtigiina soo koobo resource-kii inaga geli jiray inuu soo koobad taas waxay keenaysaa markaa shaqadii waa maxay inay noqoto accountable sidoo kalena ay noqoto transparent sidoo kalena waa maxay ay shaqo badan la abuuro marka doodayna caawa oo ah technology-ga amba abuurka technology-yadu horumar miyuu keenayaa horumarkaasina shaqo miyuu keenayaa sidaasay iskugu xidhnay oo qofku markuu la yimaado hal abuuru change la yimaado change-ka waxa ka dhalanaya waa maxay waa development in horumar yimaado horumarkaasina waa inuu keenay shaqo abuur dhacdo marka horta ujeedada laga lahaa inaasay ahayd Sokor waxaa halkaasi ka hadlay falanqeeyayaasha caawa ee barnaamijka fagaaraha halabuurka dhan kasta oo nolosheena aad ka eegto teknolojiyaddu runtii qayb muhiim ayay ka leedahay haddaba waa maxay teknolojiyaddu haddii runtii micnaheedu oo aada u ballaadhan la isku dayo teknolojiyaddu waxay tahay waxa weeye waa practical knowledge waa aqoon farsamo oo runtii la taaban karo marka waxaa jira laba nooc oo technology-ga ah waxaa la yidhaahdaa technology iyo applied technology technology-gu waa xirfaddii waa fikirkii waa aqoontii waa wixii oo dhan oo isruntii surursaday halka applied technology ay noqonayso wixii waxaa hagayay tooliskii la isticmaalayay wadamada maanta adduunyada ugu horeeya ee ugu waaweyn ee Mareykanku ka mid yahay daraasadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan 17 bilyan oo dollar inuu sanadkii ugu dambeeyay geliyay technology and innovation waxaan rajaynayaa miisaaniyadda Soomaaliya inaanay 1 bilyan gaarin sadraadeed yani waad qiyaasi karaysaa amount uu garinayo muxuu ka faa'iiday runtii de waxa ka faa'iiday waxa weeye inuu adduunyada maanta number 1 ka dhigo inuu super power ka dhigo in hubka ugu casrisan uu soo saaro in teknolojiyadda uu isticmaalaya ay mar walba ka sarreyso teknolojiyadda wadamada kale waxa ku soo xigta China oo la sheegayo 34 bilyan oo dollar in ay geliyeen runtii iyaguna investmentiga marka Mareykanka oo western style iyo China oo iyaduna wadamadii reer bariga ah waa dareemaysaa si iskugu xigaan ay teknolojiyadda ugu tartamayaan Israel oo iyaduna soo koraysa ayaa la sheegayaa in ay soo galayso kaalmaha afraad marka why su'aashu waxa weeye maxay lacagta inta leeg u gelinayaan waxa la ogaaday technology-gu inuu ku sameeyo transformation waxa weeye in waxa la dhalan gadi yani gabigaba nolosha qofka wax ka bedeli karo marka teknolojiyadda ka hadlayno wadanka doonaya uu dhaqaalihiisa ku bixiyo intii inuu technology iyo business ku sameeyaa ay ku xidhantahay oo yani maanta economic systemska lagu soconayo tax system wadanka waxay nugsuuna wadamada qaar waxay qaadaan direct tax ama tax la xidhiidha production oo wadankaasi intii in leeg ayuu soo saaray yani output ama production عنده واحد يقول ترامب I hope in 17 إن 1973 هاي إن لو سوق قبتين أنت عارف قريت حتى ضباطي عشان أربعة واحد سوق قبتين السيستم كتاعي ما كان السيستم كتاعي عليه بدو تجسين اليوم ما هو بطل مرشد أصحابه كله إن واحد يقول هاي إن مساعدة النبالين أي شيء بيصير سيستم الرأس عنده بيلد وراوين عشان تقول فاتكس فاليور تاكس وهذه الصحابة ما تروح شرابة الضبط إن تلقوا تاكسا إديو بيارسا marka taxka caynkaas oo kala ah dawladdu waxay u baahisay kartaa dhaqaalaha waddanka ku bixiso at the same time dawladdu waxay sameyn kartaa si dawladdu si economic growth gaaro kobaca dhaqaale in investment lagu sameeyo teknolojiyada oo tusaale ahaan maanta ka jira productivity-ga habka traditional ee soo saaro in qalab casri ah keeno marka teknolojiyada lafteedu way keeni kartaa shaqo la'aan oo haddii teknolojiyada xoog loo isticmaalo robots la isticmaalo in bini'aadamka laga baabi karo at the same time teknolojiyadu sector uguweli yani marka laga hadlayo dhaqaalaha ay awood siisaa waa agriculture oo markuu agriculture lagu isticmaalo teknolojiyada robots intaasoo qofka laga shaqaaleysiin karaa marka la aaminsiiyey employmentka ama shaqa abuur emergency la samayn karo ama marka laga hadlayo employment opportunities qaybta ugu badan waxay kasoo gashaa beeraha intaasoo qof baa laga yaabaa hal beer oo maanta duniyada gibilyo laga sameeyo intaasoo kuma qofka ka shaqeeya intaasoo kuma qof inay ka shaqeeyaan waxay ku xidhan tahay teknolojiyada la isticmaalayo marka haddii la isticmaalayo teknolojiyada horumarsan demand of labor ayaa qabanay shaqaalo badan baa loo baahanaya at the same time technology waxay kor u qaaday revenue ama dakhliga dawladda jidda hortay in badan baa lasoo qeexayna ku noqdo ma doonayo laakiin hortay
zimbali waa wax sababteen maanta caawa halkan iskugu imanay qof kasta poster ku arkay la xayisiiyay kadib halkan yimid zimbali taasaan ku qeexayaa anigu teknolojiyadu sidoo kale waxay noo saamaxdaa in yani si dhib yar shaqooyinkeena aan ku qabsano oo imka مثلا بخارة كلبا إنك واحد استعمالان هب فضوضي كوسينيان بالكاجي سيدا كلا واحد شرطة إن وساردية كلا أما دولتي وحنوسا وقري شرطي إن لقو سي كمبيوترايز روحوا يردن النقدي أو كعاوسي رجع سامين سيمبل تصاريات حدود بدون السوقات ولو إنك يجي هتهريبكم saaxiibkii wiilku markuu tahriibo wuxuu sawir qurux badan baa halkan channelka ku soo galaya maybe inaanu nolol fiican ba haysan wada ognayn nolol fiican inaan oolin muxuu isku dayay marka social media soo galo inuu isna tago oo tahriibo waa saameynta negative-ka inagu leedahay teknolojiyadu haddaba sidee baynu uga faa'iideysan karayna markaynu adduunka soo weegno waxa horumarka ballaaran gaarsiiyay waa teknolojiyada wadamadu waxay ku tartarmaan waa teknolojiyada oo waxaan ku heli karnaa courses free dhalinyartu waxay ka samayn karaan lacag baa laga samayn karaa oo YouTube baad isticmaali kartaa marka la eego innovationka ama ikhtiraca qofku wuxuu samayn karaa fikrado badan oo naga dhex ku xayaba jira ka bulsho ahaan walibana dhalinyarta waxaan arkaa wallahi IT-gu waxay u badan yihiin inama badan ka dhigta inama badan oo haya fikrado wallahi you can imagine you never ever inaad meel ku aragtay haddana markaad ku tidhaahdid maalgelin raadso fikradaadu waa mid shaqaynaysa wuxuu ka baqayaa in fikradii laga xado imka tala soomo kala maanta hadduu tago wuxuu ku odhanaya waxaba ka dhaadhacsanba fikradaydan waa la xadaya I don't wasaaradda isgaarsiinta roolka ay ku leedahay waxaweye kow dhinaca eegalinimada iyo promotionka department dedicated baan ku leenahay wasaaradda oo ka shaqeeya innovationska marka koowaad talabaad qoladan ma odhanayo martida ay u dhaheen qolada kale martida u siina Somaliland Innovation Zone waxa weeye waxay ka dhalatay wasaaradda isgaarsiinta teknolojiyadda waa madal iyo xarun lagu talagalay fikradaha in lagu koriyo dhalinyaradeena in lagu tababaro waxay ku furan tahay muddo aan sanad dhamaystirnayn waxaa ka wada shaqeeya wasaaradda iyo safaaradda Taiwan insha Allah way sii kordhi doontaa waxaan rajeynaynaa inay soo saarto dhalinyaro hal-abuur leh fikrado wata incubation loogu sameeyo lacag ay ku fikradahooda ku maalgeliyaan inta horey bilowgii xafiisya isticmaalaan meelaha miitimintada ay ku galaan waxaasoo dhan iyo trainada muhiimka ee u baahan oo dhan lagu siiyo waadhowtoola noqda success story shirkadaha waaweyn caamaxay ee dal ka mid noqonaya ee ku biiraan sidoo kale waxyaabaha dabeemiyaas ay ahayd wasaaraddu way xagga promotionka qabataa waxay jira tartan hal-abuurka oo system samaynta software development oo prices lagu siiyaa jaisooyin dhalinyarada soo xaraysata kuwada u sameeya dhinaca regulationska anigaa sheegay oo haddaad mar suuq baad doonayso dadkiina doonayso inaad innovation soo galaan ma qurux badnaan regulation adagagoo badan aad standardka geliso oo qofkiiba ka naqade laakiin waxyaabaha aanu soo wadno waxaa kamid ahaa aanu samaynayba iminka waanu soo bandhigno national plan innovation ku tacalluqda oo bal maxaa laga yeelanayaa qorshe qaran in laga yeesho tech innovationska weliba qaybta hal-abuurka teknolojiyadda sidoo kaleta in resource-kan aynu hayno ee waddanka shirkadaha waaweyn ayaa dowladdu ma hayso waxaa in wax looga soo jari karo dhalinyarada oo loo samayn karo fan ama sanduuq maalgelin karaya waana dowladdu ma hayne maca private iyo waxaasoo dhan laga soo saaro caqabadaha ugu waaweyn ee jiraan ila dareemayo mustaqbalada kala duwan waxaa ka mid ah ciddii lacagta haysato lacagta dalka dowladnimo hayso lacagta dalka oo dowladda waxaa haya waxa weeye suuq suuqii waxaa ka jira kala shaki dhalinyaro waxay sheekeen dhalinyarada sheegsan yihiin sidoo kale odayaashii lacagta hayayna waa sheegsan yihiin oo xitaa shaki ma odhan karayna waa caqliyad hore oo aan ogolayn inuu qof dhalinyaraha maalgeliyo fikrad wata ka ugu wacan ee ugu progressive ugu soo horumarsan waa ninka odhanaya waa bal fikradaada way wacantee kaalaga naga mid noqo oo wadao shaqeyn
naga bilowgeedii laga bilaabo shaqada aqoonta kobaca qabadaha haysteen u baahan yihiin ruux halkaas ka xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayarka magaalada Gabiley waxaana ay yiraahdeen aan ku bogaadinayna tallaabada ay qaaday in waliba xarun hal-abuurka teknolojiyadda ay sameysay aad baan ugu bogaadinaynaa waa tallaabo weyn oo muhiim ah hore u qaaday waxaan ku sii bogaadinaynaa ku sii dhiirigelinaynaa sidii centerka looga shaqaysin lahaa investment badan loo gelin lahaa wax weeye culays badan oo dhaqaale loo gelin lahaa dad badan oo dadkeen u baahan inay dadkan tababari lahaa sida incubation center fiican oo dadka waxa weeyaan lagu dhiso dhalinyarta oo si ay u fikiraan oo tech solutions fiican hal-abuur fiican oo problemska jira ay ku xallin karaan isla markaana iyaga laftooduna noloshooda horumar ay ku gaari karaan oo ay shaqo abuur badan oo sii samayn karaan halka qof ee la soo saaray ee centerka ka soo baxa ee application u kala kaca la yimaada waxa weeyaan dee saameyn weyn buu yeelanaya runtii in la bogaadiyo oo laga shaqeeyo maalgelin badan la geliyo wadamada caalamku badanku way wada leeyihiin centerskaasoo waxa weeyaan waliba aad baa loo maalgeliyaa adduun badan baa la geliyaa marka kaana in la sii xoojiyo dadaal badan la geliyaan ku talin lahaa aad iyo aad baynu ugu mahad celinaynaa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda hadday tahay suduwaheega iyo hadday tahay wasiirkeeda iyo madaxda wasaaradda ka hooseysaba waxaynu ku bogaadeenaa runtii wasaaradda iyo shaqada hadda ka hayaan ay soo kordhiyeen uu ka mid yahay barnaamijkan caawa ay Gabiley keenaan oo muddaba aynu arkaynay in Hargeysana si wanaagsan uga socdo waa ku hambaleeynaa wasaaraddana runtii wax qabadaad iyo aad u qiimaheeda u leh dhalinyartana waxtar u laweeyay mar labaad waxaan u mahad celinaynaa maktabadda maamulaheeda iyo shaqaale weynaheeda martigeliyay madashan qiimaha leh waliba aynu dareeno inagu fursadda aynu haysano marka loo eego adduunka halkaynu kaga naalno iyo geeskan Afrika dhalinyarta ama waddanka Soomaaliland technology-ga dee waxa weeye availability-ga internetka ayaa furow ah inaguna waynu dareensanahay internetka iyo fursadaynu u haysano marka inaynu si gaara ugu aragno fursad ahamiyad aad iyo aad u weyn bay inoo leedahay technology-gana dee waxay noogu tusaale ah mushaharooyinka ugu badan shaqooyinka lagu qaata waa shaqooyinka technology-ga maanta shirkadaha technology-gu waqtiyadii u dambeysay waa ka warqabteen inay soo saareen inaanay qaadanayn ardayda digriga ay qaadanayaan ardayda leh xirfadaha IT-ga intaasaa runtii dee inoogu filan waxay noogu filan in qofku isagoon meel tegin gurigiisa uu ku abuuri karo shaqo waxa weeye uu lacag fara badan ka helo isagoo technology-ga adeegsanaya dhalinyarteena markaa waxaynu u baahannahay inay fursaddaa ku baraarugaan oo weliba ay ahamiyadda siiyaan inay taraagareeyaan waxa soo raaca waddankeena dee inuu maanta free market ka jiro adduunyadaa horumartay ardayga yaree business ka sameeyey IT-ga ama technology-ga ka faa'iidaystay waxaa laga yaabaa 15% ama 30% profitku ka sameeyey in laga qaado adigu inta yaraad hesho kunna ha noqotee dee profit cidi ku tagas lagu weydiin maayo culayska leh marka runtii taa lafteeda fursada intay dawladdu awoodeysanayso ee qofka income-kiisa la cashuurayo dee waa fursadu qofku haysto marka runtii aad iyo aad baan dhalinyarta ugu bogaadin lahayn baahi weyno waynu u qabnaa oo annaga waxaan ugu culaysa qolada in dawladda hoose joogta in weli albaabadii guryaha aanu dee ka soo qaadano iyadoo technology-ga adduunyadu halkaa maray taa lafteedu waxa weeye runtii dee waa waxaynu u baahannahay inaynu dadkeenna iyo adeegyadeennaba innagu hadda runtii awooddaanu saaranaa inta ugu badan iyadoo technology-ga laga faa'iidaysanayay in adeegga dadweynaha aanu runtii fudaydino insha allahu tacaala dhalinyartuna dee camal-la'aantiiba fara badan fursadahana way jiraan waxa muhiima in fursadaha aynu haysanno inaynu iswaafajinno ugu dambayn aad iyo aad baan runtii wasaaradda ugu mahad celinaynaa iyo wasiirkaba doorkaa weyn ee dhalinyarta iyo ahmiyadda technology-gu leeyahay fahansiinayaan iyo sida u dardargeliyeen shaqada wasaaradda dhalinyarta aqoon-yahankaana runtii waa ugu mahad celinaynaa fursaddeeda siiyeen way la xaajiyay telefishinka qaranka Gabiley